maalmihii la soo dhaafay isku dhacyo hubaysan ayaa laga diiwaangeliyay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool gaar ahaan dhinaca Yeyle iyo Boqdarkayn oo ka tirsan gobolka. halkaas waxaa la xaqiijiyay inay ka dhaceen dagaalo dhimasho iyo dhaawacba geystay oo u dhaxeeya ciidanka SSC Khaatumo iyo kuwa Somaliland. siyaabo kala duwan ayaa arrintaasi ilaa iyo hadda looga hadlay iyadoo ay qaybo kala duwan ku baaqeen in nabad lagu dhameeyo arrintaas lagana waantoobo in dagaalku isku bedelo mid u dhaxeeya beelaha walaalaha ee wadadaga ee ka soo kala jeeda gobolada Togdheer iyo Sool Sanaag iyo Cayn. Cabdirasaaq Khaliif oo hore u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka ee Somaliland kana mid ah mas'uuliyiinta sare ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda ayaa khadka telefoonka kula xiriiray si aan wax uga weydiiyo marxaladihii u dambeeyay ee deegaankaas ka dhacay. Cabdirasaaq, maxaad kala socotaa isku dhacyada cusub ama dagaalka cusub ee ilaa shalay deegaano kala duwan oo ka duwan kuwii hore dagaalku uga socday ka soo yeeraya? بسم الله الرحمن الرحيم. آدي أدود ما تنتهي قرح runtii arrinta ayada ah waa arrin aad iyo aad looga xumaado waana ka xumay runtii dagaalada soo cusboonaaday inay dadka deegaanka ee wada dhashay uu dagaalkaas ku faafo mana aha mid u danaynaya dadka deegaanka waana runtii cid kasta oo hawsha loo ku leeyahay waxay gacan ku siinaysaa gabood falladii iyo dhibaatadii oo Musabbix iyo maamulkiisu deegaanka ee dadka ka geysanayay. arrintani waxa runtii iyadoo aanay marnaba loo tabriirin karaynin ay daba socotay gaade ciidamada Musabbix ay ka soo abaabuleen magaalada Og oo 5 nin oo 4 isku reertay nin reer gaareeyay ay dhawaan gaade ka sameeyeen aagaas oo nin ay ku dileen nin ay ku dhaawaceen. arrintaas oo siyaabo badan loo xallin karayay qaabkii laga jawaabay runtii aanu marnaba munaasib ahayn. dagaalkaasi shalay iyo maantaba wuxuu ka dhacay aaga Boqdarkayn ayuu ka dhacay. dad badanna waa ku dhinteen, dad badanna waa ku dhaawacmeen. waxayna u muuqataa farsamo ama hindise uu waday muddo dheer Musabbix oo ahayd inuu dagaalka beeleeyo oo ama ha noqoto deegaanka Sanaag ama ha noqoto deegaanka Sool ama deegaanka Togdheer noqotay uu ku taamayay in maanta uu qayb ka mid ah uga hirgashay dhulkaas ay uga hirgashay. arrintaas waxaan runtii jecelahay inuu ka faa'iideysanayo su'aashaadaas inaan u diro halkan uga diro baaq nabadeed dadka deegaanka ku wada nool oo aan u soo jeediyo in aanay dani ugu jirin dadka deegaanka dagaal beeleed ka qarxa deegaanka ay degan yihiin oo dadka wada yaala kala irdheeya oo ay ku kala fogaadaan iyadoo la og yahay horaba dhibaatadii uu ka geystay gobolka Sool ee muddada 8 bilood uu ka waday Musabbix inay keentay in ummaddu ay ku kala go'do ku kala xiranto isu socodkoodii nabadoodii noloshoodii ganacsigoodii wixii ay ku baaba'een in hadda raacay qon arrinta in loogu heeliyo. waxaan aad ugu soo jeedinayaa hoggaanka SSC Khaatumo in hoggaanka dhaqanka hawsha ayada ay gacan bira ku qabtaan oo ay ka dagaalamaan inuu dagaalku ku fido deegaanadaas. xil gaar ah ka saaran haddii shalayto dulmi iyo dhib laga cabanayay in xaggeena dhib ka yimaado dulmi ka yimaadana arrin la qaadan kaynin. waxyaabaha runtii aan garowshiyaalahay waxa ka mid ah waxyaabaha muuqday ee social media ka muuqday ee ahayd deegaamo la gubayo oo la iska soo duubayo oo aan dhaqan ahayn diin ahayn marnaba aan lagu qanci karaynin. wixii dhacay cid kastaba soo abaabusho oo anagu aan hubo marka aan ogahay dadka hawsha geystay gaadaha oo 4 nin oo ka mid ah ciidanka Somaliland ay ka tirsanayeen hore haddana marna garowshiyo lagu bixin kara maayo. weliba dadka deegaankii ay ka dhasheen hore ay baaqi u soo jeediyeen ayna sheegeen inaanay dagaal deegaanka ka dhaca aanay diyaar u ahayn. abaabulka noocaas oo kala in Muuse loogu heliyo oo ay sida wax u dhacaan arrin marraba garowshiyo la noqon mayso. waxaan ku baaqayaa labada dhinacba inay isxakameeyaan oo maartay arrinta ayada la dejiyo aanayna noqonin dagaal baaha oo muddo dheeraada oo aanay dadku qaadi karin oo aanay dunyadu qaadi karin oo aan ifkooda iyo aakhirooda midna dani ugu jirin in la galo. arrinta ayada oo ka digaya ma la xiriirteen dhinaca kale ee beelaha deegaanka aad wadaagta tihiin si arrintan aad u xakameysaan oo aad ugu guuleystaan baaqan warbaahinta marka laga tago? runtii waan ka maqanahay dalka laakiin waan la xiriiray dadkii deegaanka SSC Khaatumo madaxdoodii iyo hoggaankooda dhaqankaba waxaan rajaynayaa inay jawaab degdeg ah ka bixin doonaan oo deegaankana isku dayi doonaan in arrinta ayada la xakameeyo
deegaankana ay si dhaqsaa u gaari doonaan madaxda dhaqanka ee deegaanku. dhinaca kale ee idinka soo horjeeda iyaga ma la xiriirteen? shakhsi ahaan anigu lama xidhiidhin, waa si rajaynayaa maadaama ay tahay arrintu arrin deegaan iyo dad qabaa'il ah kan dambe in ay la xidhiidhi doonaan ku dhigooda beelaha kale kasoo horjeeda. cabdirasaaq ow, tan iyo intii dagaalkan uu dhammaaday 25 Agoosto hanjabaado kala duwan ayaa ka soo baxayay dhinaca Somaliland, idinkana waraaqo kala duwan oo arrintan aad kaga hadlaysaan ayaa taagnaa. ilaa iyo hadda ma jiraan wax xal ah oo ah in labada dhinac ay wada hadlaan oo heshiis gaaraan oo xabad joojin ugu yaraan ay gaaraan oo ilaa hadda laga shaqeeyay ama horsocod oo la gaaray ma jirtaa? dhinaca maamulka Somaliland maya, arrinta iyada ah annaguna laga soo bilaabo 25 bisha baaqay badan baan u soo jeedinay, madaxda dhaqanka soo jeediyay, hogaanka sare SSC baa soo jeediyay, waxaa soo jeediyay madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya baa soo jeedisay, bulshada caalamka soo jeedisay, dhammaan baaqyada ka soo baxayay kama helin wax aqbalaada maamulka Somaliland. taamka annagu hadda ku fikirkana ximayno ee dhibna laguma hayso. waxaanu rajaynaynaa haddii wanaag laga helana wanaag baanu ku dhaqmi, haddii laga waayana habkii loola dhaqmi lahaa iyadoo waa naqaanaa. laakiin runtii waxa aada noo damqaysa arrintan oo ah arrin uu in badan muuse ku taamayey oo ah in deegaanka lagu fidiyo dagaalka, isaguna uu arrintaa iyada ka faa'iidaysto, gabadfaladiisi iyo dambiyadii hore uu galayna uu ku qariyo, arrintana uu ka dhigo arrin qabiil uu ka dhigo. annaguna cidaanu ishaynay ee horreysay dambeysay aanu la diriraynay la dagaalamayna waxay ahayd maamulkaasoo dulmi deegaanka iyo dhibaato ka geystay, mana ahayno kuma wajahnayn. baaqyadayadiina way ka muuqatay in dadka deegaankana la degan la nabadgeliyo mar walba. haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada, waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PayC. waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala ah: EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa. ballanteenu waa PayC.